السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبض الدعوات قيمة قدرت من الكسور وهذا ورسيرة كورونا أو حورسي عن الله يرنا يو أقوينها خليف شيخ عمر أو يسوق أجاسمها هيدا أوركاما أي راح سمعنا سولارتي أيام دونينا وحوجا ورسي عن حركة كل يرنا يوم عطي استوديها خليف مركور كسور أدي بنك مهد علمية كلن قيمة هذا ما أنت حركة سكوح ورسينا ولا دوين خليف waxaan doonayaa bal waxaad iga warantaa ururkan Somaliland Solidarity qoortii asaasteen bal marka hore waxaan doonayaa hordhac yar laga sinteynaa su'aalaha aynaan gudagay haddii aan wax yar bayska ururka sida ku bilaabmay background yar ka siiyo marka ugu horeysa waxaan oran lahaa ururka Somaliland Solidarity waxa laga aasaasay magaalada Bristol muddo hadda laga joogo 3 sano 2015 ayaan aasaasnay dhalinyar iyo dad aqoon-yahano ayaa ururka aasaasay ujeedada ururka loo aasaasay runtii waxay ahayd dadka reer Somaliland sidii loo heli lahaa wax mideeya in dhaweyd waxa jiray ummadda reer Somaliland inay waxoogaa xisbiyada iyo qabaa'ilka ay dadka kala yar jiiteen marka sidii loo heli lahaa wax ummadda reer Somaliland كملوا لا رسول بالعبارة لاس قري إلا لو يعدو دنيارك كنا تلك يدبتي سلا الرسومان لنا اللي مدودا أي ورك نكشغيريا وحنا كحرينيا وحيانا تبصعدي ماذا وحنا كبيعردا وتقالنا كبيعردا يقعدشلا يتبصعد واتها ururkani sida igu maqaala wax badan buu qabtaa oo sida media kala socono dhawaan waxa tagtay magaalada Hargeysa ee caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland socdaalka halka uu tagtay in yar bal waxaan doonayaa ma faahfaahsan khalif warunta xarago dhawaan ayaa ka soo noqday dalkii waxna ku maqnaa 4 week afarta usbuuc aan ku maqnaa dalka aniga asxaabta ururka iyo rag ka memberka ururka waxaan ku socdaal dheer ku soo marnay Somaliland goboleedeeda gaar ahaan waxaan soo marnay gobolka Awdal waxaan soo marnay sidoo kale gobolka Maroodijeex waxaan tagnay Saaxil sidoo kale waxaan tagnay gobolka Togdheer jidka dheer ayaan soo marnay ujeedadu waxa ahayd inaan soo eegno xaaladda dalka marka dalka aad soo martid meel kasta ayad ogaan kartaa xog rasmi ah heli kartaa waxaanu eegaynay laba area oo muhiimsan caafimaadka waxa kale oo aad iyo aad ugu kurgalayna qaybta waxbarashada labada arrimood waa laba asaasiya hay'adaha waxbarashada iyo hay'adaha caafimaadka ay xog fiican oo ka soo helnay intii aan ku maqnayn gobolada soo neeynay markii aad socdaal ku tagtay caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland magaalada Hargeysa ururkii waddankan soo sheegtay waxyaabo la soo indhaysay waxyaabihii ugu weynaa ee khaliif oo la karto baahi loo baahan yahay in ururkiina wax ka qabto dareemi karto markaad waddanka dhawada marteen wax iga sheegi kartaa ururku ruuxantii sida ku sheegay bas mid waxay ahayd wacyi gelin midna waxay ahayd in war iyo xog raadsi iyo urursi marka xog fiican waan soo helnay wacyi gelintiina waxaanu sameynay dhowr wacyi gelin waxyaalaha wax ka soo qabanay waxa kamid ahaa tusaale ahaan halka markanu ka teginay mishiinaan sii qaadnay mishiinadan qalabka caafimaadka gaar ahaan wadnaha lagula tacaalo labada mishiin aan halka sii qaadnay magaalada Bristol waxaanu geynay magaalada Berbera oo aad iyo aad loogu baahnaa qalab caafimaad waxaad ogsoon tahay saaxiib magaalada Berbera waxa soo xidhaa Somaliland bari iyo galbeedkeeda jidka dheerna mararka qaarkood waxa ka dhacay accident dadka dalxiisayaasha laftigooda badda qaarkood baa ku qarqoomo marka nasiib darro halkaasi mishiinkan aanu qaadnay hore ugu oolay laakiin nasiib wanaag ururka ayaa ku deeqay jaaliyada Bristolna iyaga ayaa fanka bixiyay wayna ku mahadsan yihiin halka waxaad uga mahadcelinayaa dadkii ka qayb qaatay qaranka caafimaadka mishiinka lagu iibiyay waana mahadsantahay waa sida adigu waad in qaarkood laba mishiin bad kala geysayna finsa Boorama iyo ayna hadana khaldanan iyo Berbera marka la leeyahay wax weyn bay u tari karaan madalka mishiinadaasi meesha ma bay oolin baad ka taasoo khaliifo horta saxay mishiinada mid waxaan geynay Gabiley oo Boorama way haysatay laba mishiin baa yaalay magaalooyinkan soo marnay hadaan in yar dib ugu noqdo Boorama ugu horeysay rugta caafimaadkeeda General Hospitalka weyn waan soo eegnay rugaha caafimaadka private alifkooda sida gaarka loo leeyahay waan soo eegnay mishiinadu way yaaleen laakiin mishiino ku filan dalka ma yaalaan
waxaa kaloo soo marnay sidaan hore kugu sheegay magaalada caasimadda Somaliland Hargeysa mishiinada qaar ayaa ka yaalay berbera hal mishiin ma oolin gabilena hal mishiin kama oolin burco sidoo kale mishiinada dhowr ayaa yaalay marka waxaan go'aansanay urur ahaan labadii magaalo ee aan baahidu ka jirtay baahida weyn ka jirtay in la geeyo saas ayaanu labada meelood ugu deeqay mishiinadaas waa sax marka dadkii aad mishiinada ku leeyahay mas'uuliyiintii sidee bay u dareemeen iyagu sidee idin soo dhaweeyeen dareenkooda markaad eegto wallahi runtii dareenkooda aad iyo aad ayuu u sareeyay lama qiyaasi karaynin dareen farxad ay ku jirto dareen ay walaaltinimo ku jirto dareen ay ka muuqato inay dadkoodii caawinaya ay wax la wadaagayaan marka dareenkooda runtii dareen aad iyo aad u qiimo sareeya ayuu ahaa waan ku faraxnay in ay saas loo soo dhaweeyo oo ay mas'uuliyiintii Gabiley joogtay iyo mas'uuliyiintii kale Berbera joogtay gaar ahaan meerka magaalada Berbera iyo gudoomiyaha caafimaadka Berbera agaasimaha hospitalka guud ee Berbera Caasha aad iyo aad bay noo soo dhaweeyeen wayna ku farxeen qalabkaas aan u geeyay خلينا نحضر لي سؤال شكلنا نحضر لي فيديو marka wadankii marka idinku idinka tagay dhawaan nimanka waxa la joogtaa in laba cisho saddex aan dhacday xaaladda nolosha marka aad u korgashay waa sidee marka nolosha marka la yeeto run ahaantii horta marka dalka tagtid waxyaalo badan ayaa especially haddii aad socod ku martid gobollada kala duwan wax badan oo xoog ah ayaad helaysaa sida dadku dibadda jooga ay moodayaan dalku maaha runtii dalku abaarihii uu ka soo kabanaya waxa ka muuqata dadku inay markaasaan roobab fiican baa ka da'ay noloshoodu way soo taraysaa waxyaalaha indhahaaga soo jiidanaya waxaa ka mid ah dhalinyar aad iyo aad u fara badan oo dalkeenu wuxuu u badan yahay dhalinyar qurux badan oo wax baranaysa oo dadaalaysa ayaad arkaysaa waxaad arkaysaa iskuulladiiyo jaamacadiga lagu kalahayo ummad rajo ay ka muuqataad arkaysaa dhanka kale haddii aynu wax yar ka tilmaamno dhibaatooyinka dee jira waxa ka mid ah waxyaalaha indhahaaga ku qabanaya waxa ka mid ah wadooyinkii oo aan sidii loogu talagalay aanu dhisnayn oo u baahan in si gaar ah marka wadooyinku waa dhibaatooyin ka tagan oo go'go'ayn bal u jeedo wadooyinku waxay u baahan yihiin run ahaantii dhismo fiican maadaama wadankii weynaaday gawaarida wadada marasa ay badan tahay cabtu ku badan tahay laamidii markiiba daadkiiba la tegay marka waxaa loo baahan yahay infrastructureka especially wadooyinka in dowladda Somaliland iyo dadka qurbaha joogaan sidii loo dhisi lahaa ee wadooyin fiican u samaysan lahayn laga shaqeeyo magaalooyinku waa qurux badnaadeen si fiican baana loo dhisay laakiin jidadkii baa u baahan in la dhiso arrintaasna waa arrin muhiim ah isku xidhka gobollada isku xidhka xaafadaha arrinkaas muhiim buu ahaan lahaa haddii la habeeyo dowladdu ay leedahay dowladdu ay hawshaas ay xil iska saar lahayd waxaan usoo jeedinaynaa dowladda iyo qurbajoogga reer Somaliland ba inay arrintaas ka kaashadaan waxaan ognahay dowladdeena Somaliland dhaqaale ahaan dhaqaalaheedu uu kooban yahay haddaan shicibku la shaqeyna lama wada heli karo jidad wada fiican marka aan waxaan soo jeedin lahaa tala ahaan in la iska kaashado horena waa la iskaga kaashaday jidadka magaalada Hargeysa caasimadda sidii loo hagaajin lahaa oo fadhiga looga kici lahaa la gacmo wada jooga qabsan la soo taageer lahaa wajhi طبعا ummaddu wada jir ayay ku wada shaqeysaa waana muhiim in civil society-ga iyo dadka qurbaha jooga iyo dowladdu ay ku wada shaqeeyaan sidii loo qalabayn lahaa wadooyinkaas jaban loona hagaajin lahaa waa taraan waan soo jeedin lahaa talooyin badan waan haynaa oo ku saabsan sidii waddanka horumar loogu sameyn lahaa qurbahan wax badan baan ku qornay marka insha Allah taala xilliga munaasabka ayaanu la wadaagi doonaa hay'adaha gaarka ah ee arrimahaas ay khusayso خالد sida warbaahinta kala soconay waxa ururkiina Somaliland Solidarity Hargeysa ku qabtay oo dhalinyartu wacyigelin program aan ka san television kala soconay bal ujeedadii arrinta iyo dadkii ka soo qayb galay waxaan doonayaa inaad bal faahfaahin dheeraad ah siiso horta sidii aan horeba kugu sheegay ururkani ujeedooyinkiisa ugu waaweyn waxa weeyaan sidii caqliga iyo maanka dhalinyarta reer Somaliland loo xoreyn lahaa anagoo taa ka duulayna waxaan sameynay conference ama mu'tamar weyn oo isku yimaadeen dhalinyarta reer Somaliland shir gaar ahaan caasimadda 600 qof oo dhalinyaro ayaan isku keenay shirka hoolka weyn ee waa taqaanaa maleynaya guriga shaqaalaha hoolka weyn ku yaala ayaan dad soo shirinay waxaa soo casuunay Professor Burhan Abdi Karim
axmed mooge iyo dad kaloo aqoon-yahanaa halkaana dood adag ayaan laga soo jeediyey waxayna ujeedadu ahay sidii dhalinyarta loo wacyigelin lahaa iyaga laftigooduna ay caqligooda u tuujin lahaayeen ay uga qayb gelin lahayn doodo xalaal ah oo xaq oo xor ah dooduna waxay ahayd halkudhigeedu dhalinyarta maanta iyo siyaasadda waxaynu ogsoonahay mustaqbalkan dhalinyartu ku xidhaya marka dhalinyartu inay kusoo biiraan maamulka iyo hogaanka dalka waa arrimaha ururka uu dhiirigelinayo waana arrin aad iyo aad nooga go-an uruhan sidii dhalinyarta loogu dhiirigelin lahaa si togan ma aha dhalinyaro oo dhan laakiin dhalinyarta sida togan uga qayb geli karta siyaasadda ee hogaanka dalka wax ka qaban karta taas ayay hawshaas la xidhiidhay waana noo hambalyeynayna dhalinyartii kasoo qayb gashay iyo mas-uuliyiintii kale ee meesha yimid waxaan kaloo si gaara ugu mahadcelinayaa dr bulxan oo isaguna ahaa aqoon-yahanadii meesha khudbadaha qiimaha la ka jeediyey cabdikariim axmed waana mahadsanyihin dhammaantood waayahay khaliif waxaan taagan hadda guntiga gabagabadii waxaan doonaynaa bal in aad wixii tala iyo tusaale ay soo jeedinayso qurba joogta iyo dadkiiba jooga qurba joog iyo guda joogba wixii tala iyo tusaale soo jeedinayso ayaan doonaynaa inaad kusoo gabagabayna soomaalida waxay ku maamaadaa meel oo u baahan hadal wax kama talo dalkeena baahi badan baa jirta waxayna ku cadaynaysaa ururka Somaliland Solidarity qalabkii yaraa uu qaaday uu geeyey berbera sida baahida weyn loo qabay marka qurba joogka waxaana lagu soo jeedin lahaa inta badan fadhiyo badan ay dadkeenu ku jiraan waxaan oran lahaa waxa fiican inaynu wax wada qabsano hal shay oo dalkii kaysi hataa hadduu noqdo mishiinka yara lagu cabiro dhiigga ama hal buugood qaadid faa'iido weyn bay dalka u tahay waxaan leenahay qurba joogga hadal badan baynu yarayno aynu hawl badan bayna sugaysa qarankeena inaynu dhisnaynu u baahannahay qurba jooggana runtii fursado waaweyn bay u haystaan sidii qaranka u dhis lahaayeen oo hadda noqoto waxbarashada waxbay ka tari karaan caafimaadka waxbay ka tari karaan hadalka fiican laftigiisu waxbuu taa laftigeedu waa arrimahan urur ahaan soo jeedinayno waxa weeyaan waddankeenii waxyaalaha kala qaybinaya communitygeena iyo reer Somaliland in laga taxadiro waxa aynu ku midaysannahay iyo wadajirkeena in la ilaaliyo taas muhiim waad mahadsantahay kaas waxa uu ahaa khaliif sheekh cumar oo isagu ah agaasimaha ururka Somaliland Solidarity oo aan kula wareysanay magaalada Brussels Cariga Ingiriiska isagoo dhawaan ka yimi caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland magaalada Hargeysa khaliif aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa wareysiga adiga qoshay aad iyo aad mudan waan ku faraxsanahay inaan halkan wareysi fiican ku wada yeelano thank you